inaad halkaan aan soo nimaadna caaway waxaan rabnaa halkaan inaan ka soo jeedino shir jaraa'id oo ku saabsan booqashadii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu ku yimid magaalada Gaalkacyo ugu horreyn waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadka reer Puntland isimada waxgaradka ganacsatada dhalinyarada sidii aadka u wanaagsanayd saraakiisha iyo madaxdaba sidii aadka u wanaagsanayd ee loogu wada diyaar garoobay soo dhaweyntiisa markuu dalbaday inuu Puntland ku yimaado booqasho intii muddadii maadaama uu joogay magaalada Gaalkacyo dhanka Galmudug waxaan rabnaa halkaan inaan si kooban idin la socodsiino sida wax u dhaceen annaga wasiiradayadan qayb ka mid ah shalay ayaanu nimid subaxii Gaalkacyo waxaan u nimidna waxay ahayd soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ku sugnaa dhanka waqooyi dhanka koonfureed ee magaalada Galmudug oo halkaas u joogay safar shaqo kadib markii uu dalbaday inuu maadaama magaalada ay tahay magaalo hal magaalo maadaama magaaladu ay tahay magaalo nabadeed oo muddo laga shaqeynayo nabadeeda meel fog laga keenay inuu soo booqdo dhinaca Puntland waxaan u nimid markaa inaanu isimada iyo waxgaradka iyo maamulka iyo hay'adaha kala duwan ee shacabka aanu xoojino soo dhaweyntiisaas nasiib darro tan iyo shalay waxaanu ku jiray kan Puntland ahaan u diyaar garowga arrintaas iyo inaanu diyaar u nahay laakiin waxa dhacday in la isla afgaran waayay hanaankii loo soo dhaweyn lahaa oo ay tahay Puntland ahaanna inaanu diyaarinay maqaamkii uu mudnaa ra'iisul wasaare Soomaaliyeed mid la mida midku ku mudnaa inuu ka soo dago aeroboorada isagoo Puntland booqanaya baan ugu diyaarinay inuu ka soo gudbo dhanka Galmudug ee Gaalkacyo oo u soo gudbo dhanka Puntland ee Gaalkacyo waxaasan nasiib darro ah waan rabnaa inaan idin la wadaagno in ay arrintaasi suurtageli weyday ayna ku adkaysteen ra'iisul wasaaraha iyo dadkii la shaqeynayaba inay yiraahdeen annagu meeshaan umaanaan imaan in maqaam naloo sameeyay protocol umaanaan imaan inaanu shirar gallo oo dadka aanu la hadallo laakiin waxaanu u nimid waxaanu rabnaa inaanu dad banaanbax sameynaya aanu dhex gallo arrintaas waxaan u sheegnay in dadka ay la hadlayaan ummadda reer Puntland qaybihiisa kala duwan oo ismadu ugu horeeyaan odayaasha leh oo ganacsatada leh oo dhalinyarada leh ay la hadlayaan meelaha kale ay rabaan inay maraan oo kula hadlaan ayadana sidaas la mid ah in loogu diyaar garoobaya haddii la haydmo hase yeeshee markii aanu galabtay ugu dambayntii ugu tagnay deegaankii uu ka deganaa dhanka Galmudug ayadoo xoogaa dib u dhac jiray oo farsamo oo la xiriiray in la saxo arrimo dhanka amniga xoga la xiriiray waxa dhacday hanaankii iyo maqaamkii aan ugu talagalay si mas'uuliyad darro ku jidho inuu ra'iisul wasaaruhu u diiday uuna yiri anigu hanaana raaci mayo umana socdo inaan isimo u diyaarsanaa iyo odayaal iyo waxgarad aan la kulmeen iyo dad su'aal ay weydiinaya waxaan u socdo waxa weeye dhalinyaro meel iigu diyaara inaan dhex galo dhalinyarada inuu dhex galo oo la hadla annagaba diyaar u ahayn jadwalkay ku jidhaa laakiin sida uu maamulay waxay ahayd si ay ka muuqatay runtii aysan ka muuqan mas'uuliyad ra'iisul wasaarenimo waxaan leeyahay ma ahan Xasan Cali Khayre waa saaxiibkay shakhsiyan aniga laakiin ra'iisul wasaare Soomaaliyeed oo dawladda federaalka ee Soomaaliya waanu ognahay maantay heerka ay marayso meeshii laga keenay in lagu jiro geedi socod aad u qodxa badan oo loo baahan yahay dad mas'uuliyad dheelitiran ka muuqato oo ka gudbiya meesha maanta ay joogto oo u gudbiya dawladnimo waxaan leenahay waxaan cududaar ka siinaynaa
isimadii iyo waxgaradkii iyo odayaashii iyo cuqaashii u diyaarsanaa inay soo dhoweeyaan oo ay ku soo dhoweeyaan madaxtooyada Puntland caaway ra'iisul wasaaraha wixii dhacay oo aysan ahayn wax mudankooda ah. waxaan rajaynaynaa haddii la ahaydmo arrintaas inay noqoto mid ay ka dhalato faham aragti dheer leh oo ah sidii Soomaaliya lagu badbaadin lahaa. waxaan kaloo jeclahay halkan inaan fursaddan uga faa'iidaysto magaalada Gaalkacyo ee Galmudug iyo Puntland ama guud ahaan Galmudug iyo Puntland waxaan ognahay meesha laga keenay, waxaan ognahay inta dadaal loo soo maray. waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii dadaalkaas horeyna uga shaqaysay kana shaqayn jiray, intii dhibantana Allah u naxariisto, inta noola Ilaahay cimrigooda ha dheereeyo, oo waliba rag ka mid ah raggii u soo cediyo go'ay ay maanta joogaan dalka. waan ka xusayay Generaal Gorod oo bilad gaar ah ku helay sida uu qaybta uga qaatay dadaaladii looga soo gudbay hadda dhacdooyinka ka dhacay muddadii dambe 2015-2016 magaaladan maantana nabadda lagu waarayo halkan aynu ku helay. waxaan ka digaynaa marka uguna baaqaynaa dhammaan dadka reer Puntland iyo dadka reer Galmudugba inay ilaashadaan nabaddaas Ilaahay siiyey, inay ka fogaadaan wax alla wixii keeni kara xasarad dadkan looga tago. ra'iisul wasaaraha iyo dadka la socdaahi waa inoo yimaadeen waana ina ka tegayaan, laakiin waxaa la rabaa habdhaqanka aan u malaynayno inuu dhinac marsan yahay baahidii dowladnimada Soomaaliya u qabtay inuusan noqon mid raad ku reeba dadka walaalaha ee reer Galmudug iyo reer Puntland. wasiirkayga hore sheegay waxaan rabaa halkan waayada taala iska jawalkii wuxuu u qornaa sida tan in wasiirada Puntland iyo madaxda mas'uuliyiinta Puntland ay ra'iisul wasaaraha ka soo qaadaan xarunta uu ka degan yahay Galmudug xaafadda Gaalkacyo dhinaca koonfurta, inuu marka u horeysa booqdo hospitaalka oo dhismo ka socdo, marka ku xigtana inuu la kulmo bulsho weynta oo kula kulmo madaxtooyada Puntland oo asaga loo diyaariyey. bulshadaas oo isugu jirta isimada, nabadoonnada, cuqaasha, ganacsatada, dhallinyarada, ururada bulshada, cid kasta. marka uu halkaas kula kulmo oo khudbad uga jeediyo ayaguna ay kula hadlaan, kadib in loo kaxeeyo garoonka kubadda cagta ee Cawaale halkaasoo uu dadka dhallinyarada uu kula kulmayo, lana kulmayo maamulka garoonka gacanta ku haya, kadibna uu madaxtooyada dib ugu soo noqdo halka isimada uu si gaar ah ugula kulmo, casho sharaf loo sameeyay halkaas ay ka dhacdo, ciddii kale uu ra'iisul wasaaruhu dalbadana ay sidaa kulankeeda ku dhacdo, kadibna aanba bixin heer ra'iisul wasaaraha in loo sameeyo. intaasba sidaan sheegnay wuxuu ka doorbiday in uu si qariska tuurnimo ah u dhaafo maamuuskii nidaamkii loo sameeyey.